الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كلمتنا waxay ku saabsan tahay gobol ka mid ah xadiid oo min axaadiid nabiy sala allahu calayhi wasalam ka mid ah. gobolkaas ama qeybtaas nabigu wuxuu leeyahy sala allahu alayh wasalam: waladii nafsu muxamadin biyadihi lakhuluufu fami saa'im ama lakhaluufu fami saa'im atyabu cinda allahi min riixi lmiski. wuxuu ku dhaaranhayaa nabigu sala allahu alayh wasalam, wuxuu leeyahy waladii nafsu muxamadin biyadih, waxaan ku dhaaranhayaa axadka nabi maxamed naftiisu ay gacantiisa ku jirto oo allah ah subxaana wa tacaala. lakhuluufu fami saa'im waa la xarakeeyaa bidami iyo bilfatxi labadaba khada, waana isku macno ayay noqonayaan. lakhuluufu fami saa'im ama lakhaluufu fami saa'im yana urta yana kasoo baxaysa qofka sooman afkiisa. yana khaluuf waa raa'ixo kariiha oo ay dadku dhibsadaan. haalibanna kolkii ay calooshu ay maran tahay ayay kasoo baxdaa yana urtaasi. calooshu kolkay maran tahay soonka daraaddii uusan waxba cunin way kasoo baxdaa. marka uusan qofku muddo badan uusan cadayaninna yana way kasoo baxdaa. marka qofku uu daalan yahay ama uu rafaadana way kasoo baxdaa. marka uu qofku hurdo uu kasoo kacana yana ee uu jiif iyo hurdo kasoo kacana way kasoo baxdaa. marka waa raa'ixa, waa ur oo qofku dadku ay dhibsanhayaan. waxaa laga yaaba qofka ay kasoo baxaysa inuusan dareemin, laakiin dadka kale kolkuu ama uu neefsado ama uu hadlahayo oo kale ayay dhibsadaan. saa daraaddeed waxaa fiican qofka muslimkii mar kastaba inuu ku dadaalo yana cadayga, oo layna amray inaan cadayga aan ku dadaalo, oo uu ka mid yahay min hadyi nabiy sal ly slam iyo sunnadiisa ay ka mid tahay. laakiin markii la sooman yahay way ka duwan tahay. urtu hadday qofka kasoo baxayso isagoon soomanayn yana ma fiicna oo qofku inuu nadaafada ku dadaalo ayaa loo baahan yahay. diinteenuna waa diinu nadaafa. waxa uu muhiimsan in la nadiifiyana waa afka, sababto waa maxalu dikri illahi subxana wa tacaala. af wasaqaysan oo urahaya inaad ilaahi subxana wa tacaala qur-aankiisa ku aqrido, ood ilaahay ku xusto, ood ilaahay ku barido waa laga fiican yahay. malaa'igta wax kaa qoraysana yana way dhibsanaysaa yana urtaas, sida laynoogu sheegay xadiidkaba basasha iyo toomta iyo qofka cuna yuusan masaajidka imanin yana lianna malaa'igta ayaa dhibsanaysa, suu nabigu inoo sheegay sal lla ly slam: lianna malaa'ikata tata'aadaa mima yata'aadaa minhu banu aadam. yana waxaan ka qaadanaya halkaas yana raa'ixada ama urta kasoo baxaysa afka qofka in aynan fiicnayn haddii aynan ahayn mid ku timid yana soom. ama haddii ay soom sababtii ku timid, ilaahay agtiisa subxana wa tacaala waxay ka udgoon tahay, oy ka wanaagsan tahay, oy ka fiican tahay yana miskiga. miskiga waxaa la yidhaha waa nooca ugu qaalisan ama ugu udgoon noocyada cadirka adduunka laga helo. waa nooca ugu qaalisan, uguna udgoon, uguna cara fiican weeye miskigu. marka saa daraaddeed wuxuu leeyahay alle subxaana wa taala xadiis waa xadiis qudsi ya nabigu inoo sheegay sal alla alay slam: yana qofka sooman urta afkiisa kasoo baxda, dadku hadday doonaan haba dhibsadeene ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala waxay ka udgoon tahay oo ay ka fiican tahay yana miskiga. riwaayin kale waxay kusoo arooreen axabu ila allah, ilaahay waxaa looga jacayl badan yahay yana miskiga. aada ugu fiirso markaa maxay ku timid. raa'ixadu waa raa'ixa kariiha, urtu waa ur qurmoon wey, dadkuna ay dhibsanhayaan. maxay ilaahay agtiisa subxana wa tacala qiimaha oga yeelatay? waxay oga yeelatay sababta ay ku timid bisababi soom way. soom bay ku timid. maadaama oo qofkan sooman ee cuntadii iyo cabitaankii ilaahay dartii u daayay aathaartii ka timid ay tahay yana qurmoonkaasi iyo urkaasi, saas bay isu badashay ilaahay agtiisa qurmoon intay noqon lahayd udgoon ama udayg ka udgoon. ilaahayna uu ka jecel yahay wax kastoo adduunka laga helo, markaasaa nabigu wuxuu lehy sala alla alay wasalam: waladii nafsu muxamadin biyadihi
لخلوف فم الصائم قفك صوبا قربونك أما أرتا أفكيس كصوب حضاي أطيب وحي كأودقون بدنتهي عند الله إلهي أكتيسة من ريح المسكي مسكيكا أذيكيسة مسكيكا أذيكيسة هذي دوانا ضدكو هادي بسدين لكن وحا يعني مهمة وحا إله أكتيسة سبحانه وتعالى إله أكتيسة وإيان مركا أرتاس هذي ساتهي محاض أمال عبادة أسي مركا عبادة آثار تيدي قلمونك أهيد إله أكتيسة أي مسكيكا كفي عناتي إله أكتيسة قيمة إنتين لك بكالي ذاي وقيمة على كوبي كرين إله سبحانه وتعالى نوافجيه هنا إنه إرزاقه عبادة نوعس إنا قذنه سيد إله سبحانه وتعالى ودون هينا إنا نقذن إله سبحانه وتعالى هنا وافجيه إلهينا هنا أقبله إلهي دنبقنا هدافه كي والدكنا هدافه كي ضدك أن جعله هدافه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم